السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ardayda sharafta leh aad iyo aad baan u salaamayaa. Salaan kadib waxaynu ku balansaneen maanta qaybtii u dambeysay. Oran maayo videogeena oo dhan laakiin naga ahaan maadaama kooraskiina gabagabay yahay, waqtiguna iska gaaban yahay intii muhiimka aynu ka soo qaadanaynay. Marka qaybtana ugu dambaysa. Marka qaybtan laba qaybood baan u kala qaadayaa. Waxaan ku horeynayaa qayb la yiraahdo background change the library ama changing library. وأصلي أنا بدل لهين library halkan inuu yaalo oo nashqado kale aan u qaadan lahayn iyo qaybta labaad oo subtitle waxa weeye in qoraal aad raaciso videogaagi deetana qofka inta uu hadlayo aad ka gaarsiiso waxyaabaha uu leeyahay. Marka haddaan isku dayo hadda kuwan inaan mid ka qaato, for example green grass kaas aan ka qaatay hadda ama greenlandka markaan ka qaatay qaybtan oo dhan waan iska bedelaya. Halka baan tagay ay ku qoran tahay media continuity, kadibna waxaan u bedeli karaa color board ama color borders. kadibna kalaradan midabyada badan ah ayaad kii adiga ku cajibiya aad ka qaadan doontaa. Kana ka soo qaatay hadda aanu kaygii kala soo garab dhigtay isla halkii baan ku noqday color board ka ahaa, kadibna waxaan u bedelay background image. sawiradan faraha badan baad qaadan doontaa, kadibna waxaynu qaadanaa raindrop ka. Okay, waynu soo qaadanay halkaas aan soo dhigtay kana waayahay. halkii baad bedeli kartaa, maxaad ka dhigi kartaa music background marka ku shaqeyn maayo hadii uu wax khadi kugu xidhan computerkaaga. ana hadda khad baa igu xidhan, maadaama khadi igu xidhan marka waan soo dejin karaa. waxaan isku dayay marka ba si uu kala yariyeen aan qaato kana kala imika 5.8 GB marka u dheer yahay malaynayaa waqti bay naga qaadan. mar rabo inuu videoguna sii dheeraado, waxaan isku dayay bal kuwa yar hadda kaasoo kala soo qaadanaya waa keegi Pascal kaasan download leeyahay. hadda waa kaasoo ii dhameeyay tirtaba, maadaama ii dhameeyay tigtii uu ii saaray waan soo qaadanaya, kadibna halkan aan soo dhigayaa. aan soo bilaabo marka waayahay. bal waxaan isku dayayaa marka mid kale inaan soo qaato haddana qayb bal mid kale aan isku dayayaa inaan soo dejiyo. okay, waxaan soo dejinayaa kan waa badan yahay ka 2 ay soo deji 2 MB ga kulli 2 MB way iska dheeraanaysaa waan filayaa, laakiin khad fiican hadaad haysato markaaba uu soo dhacaya. hadda aniga wakaas uu socdaa 60 buu socdaa 70 80 90 boqolkii uu buuxiyay. haaway marka halku gala waa kan tigta waad ku garanaysaa marka wixii ku download garaysmay. waan soo qabanayaa kadibna halkan aan soo dhigay. codkana aad buu dheeriyay soo markaysid. okay, halkaas aan dhiganaya marka haye labadii cod isku dhex jiray suusi dhexdaa aan aragno codka intaan isku dhex furin. okay, naga geey kana dib u celi haye bilow. marka adiga ayaa kala doonan doona muusigyadaada iyo codadkooda. okay, marka waqtiga kugu qaadato bay noqonay. waayahay sii socdo marka waxaan u sii soconayaa marka sound clipka isaguna waa maxay? waa cod yar oo naqan. knife-ka markaan soo qaato bal isagana knife-ka aan ka soo qaato ama mid wax kale oo ii download garaysan aan eego. waa tan ii download garaysan hadda animalka waan soo qaatay halkaas aan soo dhigay. okay, kan aan hore isaga riixo aan soo bilaabo marka waa ka crown waaqle macnaha sidoo ceeyay. hadda lion doonayso cida lion ko kale waa soo dejisanaysaa. lion kan soo dejiyo kadibna cidi lion ka ama libaaxa kolba saad u taqaano ayaan soo qaatay halkaas aan soo dhigtay. marka waad badsan kartaa yaa okay, iyadii maxaad ka dhigan kartaa? iyadii baad badsantaa right click tiraado eed koobiyeysato baad xaggan istaagi pass baad orani. haye inoo bilow hay hadda. marka adiga ayaa soo qaadan doona kolba qaybta aad doonayso. okay, ta ugu dambaysa hadda aan tago ama project-gan isagu waxa weeye hadii project aad hore u diyaarsatay uu jiro uu ku soo gali doonaa. Express projects-kuna waa maxay? waxa weeyaan waa muuqaalo aad iyo aad isugu dhex jiro oo fara badan oo aad kala saaran doonto. haddaan for example soo geliyo kan oo kale hadda waxaad arki doontaa qaybo fara badan inuu u kala baxbaxay. oo haddaan halkaas sii daayo hadda marka codkaygaan ka dhex qaadan ka dhigahdo isaga, kadibna halkaas markaan istaago balan sii daayo waxyaabahan soo gashaday ama express project-kan waxa uu yahay qaybahaas isugu jira. hadda waad kala qaadan doontaa. oo haddaan ka qaatay for example intaasiba waa isaga keligii Soomaa kaas keligii baan ka qaatay deetana waan sii daayay.
okay project-kaaga qoraalada saas u samaysan deetana aad qurxin doontaa isla fahanaan filaya edit baad oranaysaa markaad doonayso inaad qoraaladan adu qoraalla aad leedahay aad ku bedelato marka aad edit garayso qaabkii loo bedelayo wixii waynu aragnay soo ma okay aan isku dayo bal hadda inaan bedelo right click edit garay markaad edit garaysato aad edit tiraahdo intii aad doonayso ku qoro xagan waxaad igu qortaa jaamacadda waxaad igu qortaa Badr intana waxaad igu qortaa caalamiga okay aan idhaahdo waxaan sii daaya markaa bal project-kaygii qaabka u eegan doono wakaa qoraalkaygii hadda muxuu noqday jaamacadda Badr ee caalamiga ah okay jaamacadda Badr ee caalamiga ah maadaama adigu tidhi kuwana waad kala gurguran kartaa oo midba si aad doonto ayaad u qaadan kartaa oo kan kale muxuu ku qaban doonaa waxyaabo ku qaban doona wakaa lighting buu sameeynaya lighting-ka uu sameynayo waad ka faa'iideysan kartaa kan kalena isagana aan eego halka markaad joogto isagana aan eego waa numberski okay iyagana waad qaadan kartaa kolba sida aad doonayso iyo qaabka aad doonayso aad u qaadan doontaa intaan kaga imaado markaa project-kayga hadda halkan ii yaala waxaan u gudbayaa markaa oo kii maxay ahayd aan kusoo ceshanayaa media continuity marka media continuity marka aan kusoo ceshado waxaynu hordhac ama aynu ka sameeyno toos u isticmaalnay inaynu bedelno background-ka meesha inoo yaala waxaad ku bedelaysaana waa maxay waa kolba midkii meesha aad uga baahan tahay marka aad soo furto waxaad la bedelaysaa waxa kaaga muuqda halkan library-ga ee shaqada aad ku qabanayso okay intaan kaga imaado markaa intan meesha ii taalo dhan dhamaantood baan iska saarayaa hal xabo markaad ku dujidar control add kadibna hal mar remove dhamaantoodba okay maadaama library ay ku soo noqday hadda kana soo gashanaya good kana waan soo gashaday okay kana waan soo gashaday summarize-ka okay intaasna markaa ku daysanaya intana markaa ku isticmaalaya waxa la yiraahdo subtitle-ku markaa waxa uu yahay xaggan aynu ku arkaynaa waa yahay subtitle marka aad doonayso waa last maxay tooliskaaga xabada u dambaysa ayay noqonaysaa xabada ugu dambaysa ayay noqonaysaa waa kan waan ku jiiday kadibna waxaan doonayaa intaa yare hadda ay ku qoran tahay green-ka ah grass-ka ah inaan green grass idhaahdo hadda waxaan ku jiiday markaa okay waxaan bilaabo okay halkaasaan markaa ka bilaabaya double click aan ku jiido halkaa markaa waxaan ku qorayaa maxay green grass kadibna maxaan idhahdaa halkaa markaan joogo waxaan odhanayaa waxa weeye maadaama qoraalkii meeshan kaaga soo baxay qoraalkii halkan aan ku qornay green grass-ka ahaa maadaama halkan ka soo baxay markaa waad soo yareyn qoraalkaagii oo maxaad leekeysiin doontaa waxaad leekeysiin doontaa qeybta aad ku joojinaysa ee green grass-ka ah xaggana wadwadi wadka la soo bilaabay okay haddaan soo bilaabo hadda grass-kaas xaguu ku joogi doonaa wuxuu ku joogi doonaa keliya intaa grass-ka ah okay wakaa u ka baxay kan kale isagana maxaad samayn doontaa dad u baahato isagana sidoo kale waad ku jiidi doontaa kadibna waxaad odhan doontaa double click haye maxaan ku qoraa isagana sunrise ku qor sunrise soo maahayn sunrise waa yahay kadibna maxaan idhahdaa waa kan dee qoraalka xagan ku yaala sunrise hadda makuu soo baxay okay xaan ku dhufo marka sunrise-ka hadda kuu soo baxay okay sunrise-ka isagana intaad ku ekeysiinaysaa waxaad ku ekeysiinaysaa kan wixii ka dambeeya halkaa ku jooji kana halkaa ku jooji okay aan soo bilaabo marka dhammaantiiba labada qoraal hadda laba meesha ii yaala waa labadee waa green grass-ka iyo sunrise-ka waa cadeed soo bixiya soo maaha okay labada haddaba marka aan waxeeyo maxaan ku xijisiinayaa kii ku xigay isagana waad ku xijisiin doontaa halka uu yaallo unbaad la simi doontaa okay aan soo qaata hadda ma isla sameeyeen labadani haddii saa iskaga hoos iskaga gasho waad kala kordhisan kartaa si aad meeshii waadax kugu noqoto deetana qeybtaadii aad isku dhadhaweysan karto okay waa kan hadda halkaasaan ku joojiyay markaa waayo labada hadda waan waxeeyey mar saddexaad haddaad u baahan tahay maxaad sameyn kanaad soo istaagay kadibna markaad videogii bilowdo oo waxoogaasa u bilaabmo baad ku jiidi doontaa plus isoo geli double click baad ku jiidi doontaa mar kale kadibna waxaad odhan doontaa maxay kan hadda isaguna waa sunrise sooma sunrise isagana
aye way sunrise kayga isagana waan waxeeyay kadib video-ga isagana aan bilaabo si aan u arko waa kan sunrise kayga isagana okay kanna waad soo celin kartaa oo intaad isaga halkan keento wad xaggana maxaad ka odhan kartaa halkaa igu jooji isagana okay weliba wax yar soo wada halkaas ku joojinaysaa okay kan kalena isagana sidoo kale markaad halka joogtad bilowdo isagana waxaad oranaysaa plus double click ku jiid isagana maxaan u bixinaa Sportify de Sportify way yahay bilow bal isagana inuu hadda shaqeynayo in kale Sportify isaguna waa ka markii uu bilaabay isaguna isoo riix isoo qabahan keen kadibna waka okay haddaan video-ga hadda soo wada bilaabo waan idhahdo isoo wada bilow ka soo bilaabo ka waa yahay haddii uu noqdo xabaddan u horeysa marka qoraaladaadii waxaad u sameyn kartaa maxay waad bedeli kartaa positionada ay yaalaan oo waxaa loo kala qaadaa maxay x iyo y halkaasaad ku jiidaysaa marka ay ku qoran tahay adjust subtitle position waad ku jiidaysaa okay labadan markaa meesha kaaga soo baxay ee kala ah x iyo y x-tu waxa ay caddaynaysaa maxay inaad u wado xagee inaad u wado inaad midig iyo bidix u wado okay hadda dhinaca waxaan geeyay midigta muraayadda haddaan doonayo centerkan halkaasaan keensani haddaan doonayo bidixdan halkaasaan geysani okay haddaan doonayo markaa centerka way igu soo celi meelaha iga dhig 0 okay waa yahay halkaasaad 0 ka dhigan doontaa waa u dambeysa 0 iga dhigtay isagaa dhexda tegi doona waa centerkiiba hadda taagan yahay okay y-duna markaa maxay caddaynaysaa waxaad y-da u isticmaalaysaa waxa weeye kor iyo hoos si aad u geyso kolba halkii aad u baahan tahay kor iyo hoos maxaa la yidhahdaa kor iyo hoos waxaa la yidhahdaa videogayga xagga sare ama centerka ama hoosta halkuu ii yaalaa kolba halkii aad doonayso okay haddaan hadda xaggan idhaahdo aan ku tegi doonaa halka videogayga ugu sarreysu tegay ood la arkaysaan baan u malaynayaa haddaan markaa soo celiyo halkii 0 ka dhigo nii sheegayay 0.000 ka dhig weliba waa centerka ii geey qoraalkayga waa kaa okay qoraalkayga centerkaan geystay wax ma ka bedeli karaa hadda waan ka bedeli karaa maxaa diiday inaan ka bedelo waa kan textigaan ku jiidayaa kadibna qaabkan uu u qoran yahay oo dhan baan bedelayaa marka haddii aan doonayo inaan wax ka bedelo waa kan kadibna okay waa dhuudhubnaatay hadda aan ku noqdo far waaweyn aan ka dhigo si aan iskula aragno waayo waa ii boldi italic ka dhig mid yar qalqaloocda ka dhig oo italic oo macnaha burburan fartanna waxaad iga dhigtaa maxay show cardka iga dhig apply de marka colorkeedana waad bedeli kartaa maxaad ka dhigan kartaa shadow waad u sameyn kartaa hataa shadow madow ah okay kadibna okay aan apply idhaahdo waka hadda qoraalkaygii waa la ii weyneeyay okay waad weyneysan kartaa shaashada qaybtaad ku shaqeynayso waxaan markii hore aan yaraystay halkaa intaad dul istaagto marka calaamadda labada dhinac ujeedaa kusoo baxda qabo midna hoos u qabo waad iska wadi kartaa waka waraadada qaabkaasaan markaa ugu shaqeeyay okay qaabkan markaan ugu shaqeeyay subtitle-ka lagu sheegay waa maxay waa inaad qoraaladaadi lahaadaan qayb loogu soo hagaaga markaa okay waxaad ku aadinaysaa qof walba hadalkiisa iyo picture-ka inta uu leeyahay okay waa ka sunrise okay waa ka sunrise kale Sportify markuu halkaa gaadho waa inuu soo saaraa waa ka mid walba sidaasaad hadda ayaad ugu waxaynaysaa markaa subtitle-ku waa kan weeyi qof kastana waxaa looga baahan yahay qoraalkiisa inuu soo raaciyo marka khudbad qofka uu waxaynayo oo kale in qofkii hadalkii iyo khudbadii isku waqti uu waxayo for example qofkii hadduu 5 second ay 10 second bay markaas waa 5 second waa 3 second weeye okay halkaa marka uu socday 4 second baa hadda halkaa iga muuqda 4 second marka uu socday ayuu hadlay waxa uu lahaa waxaan tagaynaa maanta magaala madaxda Soomaaliland magaalada Hargeysa markuu intaa yiri ba maxaad sii qoraysaa waxaan tagaynaa maanta magaala madaxda Hargeysa kadibna intuu hadalka ku dhawaaqay hadalkaas wuxuu ooli doonaa maxay halkaas uu ooli doonaa okay wasla fahanaan filaya marka waxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh